haddaan u yimaado su-aasha horta maxay heeday waxyaabo badan baan ku dooran lahaano ninka dookhay maxaa kamid ah waxaa ka mid ah horta marka hore qofka nolosha la wadaagaysa waa inuu diin lahaadaa wata koowaade talabaade waa inaad maxay heeday qofka doonaysa inaad nolosha la wadaagtaa oo noloshaada kafeyn karaa waxba xataa lacag badan amba maal badan yaan lahayn laakiin se just inuu noloshaada uu kafeyn karo oo maxay heeday sidii uu kafeyn karo yacni dee aad waxaad u baahan tahay dhaqaale ahaan kugu filnaan karata adiga oo shaqaysto nin ade aan yani bilaa camal aan hayn oo shaqaysanayo xoogiisa ku shaqaysanaya wax kasta qabsan kara waxaan soo noqonaa dhankii dookhaaga adiga aad jeclaan lahayd ee isleedahay ninkaas saas guurso waa sida kulleeto haddaan lahay dhalinyar qof kasta oo dumara laabta waxa u suran maxay heeday sawir u khaasa adiga sawir ku khaasa ku suran aniga sidoo kale sawir khaasaba ay suran oo aan rabay ninka saas dookha saw eeg nolosha la qaybso ayaan isleeyahay adiga bal ka waran maxay heeday sawirka laabta ku suran horta waa mide qofka marka hore horta qofku waa inaad ku jecel yahay waa ta koowaad baa taasa dookhiisa horta ninku qurux horta qof laguma doorto walibana siiba ragga dumar way dhici kartaa in qurux lagu doorto laakiinse ninku nin xataa maxay ahayd qurux saasa yaanu lahayn laakiinse ninku quruxdiisu waa maxay ahayd inuu qofka uu noloshaada kafeyn karo teeda kale yani sidee u jeedaa dookhaaga macni isteelkiisa miyaa mise waxyaabihiisa kale qaabka labiskiisa midabkiisa maxay ahayd waxaaga riwaayada dhaqdhaqaaqiisa balka waran labiskiisa horta waxaan jecelahay anuu ragga dookhayga walibana ninku inuu xidho garamaanta siiba garamaanta gamcagaabka gamcadheere ahaan sidoo kale shaararka gamcagaabka marmar iska xidho gamcadheeraha surwaalada noqotay jiimiska iyo surwaaladan kale softiga caadiga dharkeena caadiga oo isku xidho maxay kale aad u mahadsantahay bal ka war hadduna gacmagaabkaasi kusoo baxayn baninkaaga aad jeceshay inuu xidho mayde kala soo kala baxay waan ogahay qofka already waan garanayaa maaha wuxuu kusoo baxaya wixii kale marka horan eegaya horta wuxuu kusoo baxayo kadibna waxaan koranaya waxaa xidhay iskadaa kuwan kale maxay noocaasi kuma soo baxa sidii markaad la sheekaysanayso oo kale ma jeclaan lahayd dharka inaad ka bedesho qaabka ka bedesho oo tidhaahdid saas u labiso waxaas xidho sidaas صح waa runta imika intaan la sheekaysanay aanba xiriirkuna dhex maro intaanan isguursaba ayaan dee kolley dookhiisii ogaaday soomaa qofka waad iskaran waxa laga yaaba inaad dabeecadiisa xataa fahanto markaasaad usii sheegaysaad ka odhanaysaa waxyaabaha noocaasa xidho kuwaasaad ku qurux badan tahay adiga u sheegay isagu waxa laga yaaba inaanu isgaranaynin laakiin adu aad maxay aad garato waan soo marnay lacagihii kharashaadkii iyo midabadii iyo waxyaalaha caynkaasa inaga halka inoo marisay waxay ahayd adigoo ka bedelaya inag labiskiisa oo kule qaabkan kuma soo baxdide qaabkaasi dharka noocaasa soo xidho oo inaga sheekadiiba inoo socotay markaad maxay heedaya waxyaalo aad adigu jeclaan lahayd inaad kala sii hadashid inta maxay heeda mustaqbalkiina ka harsan oo kale waxyaabahan kala sii hadlo waxyaalo ugu muhiimsan aad jeclaan lahayd adigu inaad kala sii hadashid ku farxad gelinaya markasta niyadaada ku jira marka hore waxa kamid ah marka hore maxay ahayd waxyaabaha marka hore kasii wada hadlanaa intaanan isguursan moogtahay marka waxyaabahan kasii wada hadalna waxaa kamid ah inaanu maxay ahayd una ani kaligay iga ahaaduna gabadh kale la guursanin taasoo kale kasii balan qaadi lahaa aan ka oran lahaa maxay ahayd mar haddad aan isguursano inaanad gabadh kale guursanaynin iga balan qaad marka taasoo kale ayaan ka balan qaadi lahaa haddii waxyaabo khaladoo kale aad igu aragto ama wax si kalaad inaad i weydiiso aad igu tiraahdo waxaas waa maxay nasaa ka taalig haddii aan wax khalada waxyaabaha ka arko aan weydiin karo waxyaabahaas maxay ahayd aad baad mahadsantahay marka haddaad ka soo bixi weydo adiga shuruudihii lagaga baahnaa amba maxay mas-uuliyadii lagu guurso runtii aan ahayn wax halkan lagu soo koobi karo bal ka waran arrintaas iyada dhow ma ka xanaaq lahayd damay waxaan u leeyahayba hayla guursanin ayaa inaan mas-uuliyadaha ka soo baxo waanaan maxay heeday waan boqolkiiba boqol waxaan hubaa haddii maxay isagu aanu de waxyaabo kale aanu iska raadsanin inuu maxay heeday anigu aan kafeyn karo noloshiisa iyo wax dhan walba de dhinac kastaba inaan kafeyn karo anigu marka sheekada oo kale iminka markaad la sheekaysatid gabdho kale inuu la sheekaysto ma jeclaan lahayd mise inuu keligaas kugu koobnaado maya guurkiiba baan taaganaya inuu naag kala guursado sheekadiina haba sheegidba waxaad ku ogaan kartaa marka sida ogaan kartaa de waxaad ku ogaan kartaa kolley qofka waad wada sheekaysata soo maaha waxaa dhici karta mararka qaar waa la kulmaa waa la isarkaa soo maaha marka waxaa dhici karta inay adigoo aan la joogtidba inay
oo qofkii kale dawla sheekadin soo baxo jeeda kale wax horta wax kasto runa lama ma qarsoomi karaan maray haataba kulli wada ogaanaysaa in maxay ahayd adiga qof kale oo la sheekasto aan adiga ahaynin marka xaqiiqada markasta dhan kastaba ahaatee mar lay wada ogaanaysaa xaqiiqada marka maxay ahayd intan aanu sheekaday inaanu gabadh kale la sheekaysan waxa ku xigta inaanu gabadh kale aanu guursanin dhanka xiriirka marka maxay heeday dhalinyartu markaan sheekaysano waan sheekaysanaa waan isku baxnaa waan isku tagnaa ballanta oo kale ma jeclaan lahayd in maxay heeday ballanta lagu soo dedejiyo mise in maxay heeday ballanta aan lagu soo dedejinin أنا waxaan taageersanay horta in dadka labada qof in badan kala raagaan oo ana maxaydeena ballantii oo mar kasta la is arkin waayo hadii mar kasta la is arko qofkii la kala xiisa dhacaya marka qofkiina wax xiisa badan ma haynaysid laakiin hadii qofka imiga oo aad kala raagtaan oo kale maxay xiisa badan bad isku haynaysaan maalinta waxa laga yaabaa markaad aragtaan in badan aad wada sheekaysataan noloshiina ku saabsan waxyaabo badan aad wada sheekaysataan laakiin hadii aad imiga habeen kasta is aragtaan amba maalin kasta is aragtaan wax dhici karta in horumar baan nolosha ka gaadhida xataa qofku uu ka xiisa dhacay sooranaya maxay heedeen waa maxay sidan oo waxa laga yaabaa inuu iskala ka maxay heedeen waa dhalinyar ma ogtahay wuxuu doono inuu iskala ka maxay heedeen xaraawaso iskala ka qosqoslo tan hadhowna laga yaabaa inuu qof kale iska raacaba laakiin inaad waxa fiican aad qiimo isku yeesho oo maxay heedeen inaad markasta arkin qofkii markasta inaad is arkin qiimaynta isku yeelaysid ma markasta oo qofka arkin ay ku xidhnaanaysaa mise waxa ku xidhnaanaysaa waxyaabo kale siyaabo kale oo adiga qiimo isku yeelaysid ninka agtiisa markay noqoto maamay waxay noqon kartaa hadda dhinac kasta in badan bay noqon kartaa laakiin si aanu maxay heedeen waxaan oran karaa hadii inkasta haduu aragiinu bato oo markasta is aragtaan qiimahaaga hoos u dhacaya ninkuna xataa wax xiisa badan inuu ku hayo kuma haynayo laakiin si hadii aadeen maxay heedeen is arki weydaan maxay heedeen in badan waxa dhici karta inuu maxay heedeen ku si faraxsanaado maalintaas arkasaan oo maxay heedeen siraado qofkaas waa qof qiimo la ilaali waxyaabahaas soo dhanaya waxaan nimaga sheekadii baan kasoo gudubnay oo maxay ahayd waxaan soconaa dhanka mustaqbalka ayaan nimaga u soconaa maxaad ku garan kartaa ninka kula sheekaysanaya in mustaqbalka doonayo iyo inuuna ka doonaynin maxaad ku garan kartaa horta imiga dhalinyartu waa dhalinyar baa la iska yahay waa la soo wada garanaysa maaha marka kulli waxaad ku garan kartaa qofka mustaqbalka ka doonay kaan ka doonin waad kala garan kartaa waayo kan aan mustaqbalka ka doonin wuxuu doonayaa in iskala baashaasho maxay ahayd meelaha iskala soo marmarto wuxuu doonayaa u sameeyso laakiin si kan kale ma aragtay qofka mustaqbalka ka doonay oo qofku ilaalinaya xataa inaad aragtaan ama kulan aad yeelataan ayuu maxay ahayd ayuuna ogolaanaynin qofkan qiimaha ka qofka mustaqbalka ka doonaya waxay dhahdaan inta badan waxa dhacda in maxay ahayd gabadho ay dhowr nin la sheekaysato dhowrkaan nin haddana waxa dhacda inuu mid u soo baxo mid kaasna oo maxay ahayd mustaqbalkeeda noqo oo guursato imika nimco ahaan adiga maxay ahayd hal wiil ma ku koobantahay mise wiilal kale ayaad la sheekaysataa horta dhalinyarta marka la sii yar yahay way dhici kartaa inaad dhowr qof ama dhowr nin aad la sheekaysto laakiin imika kale dad anu naag weyn baan ahay ma ogtahay imika kale anu maxay qof kaliya ayaan la sheekaystaa anu ku koobanahay qofka kaliya jecelahay inaan mustaqbalka wada wadaagno ama nolosha waayo hadii aad niman badan la sheekaysato waxa dhici karta noloshaada inay qiimo dhacdaba oo qiimo badan aan yeelanin nimanka badan horta ma fiicnaba ani ma lahayn haddaba maxay wad guursatay ninkaaga qaab nuuciyay baad ula dhaqmi lahayd markaad guriga isku tagtaan waxaan ula dhaqmi lahaa horta nololta ugu wanaagsan oo kale ayaan kula dhaqmi lahaa markasta waan soo dhaweyn lahaa waan faraxsanaan lahaa kulleeyda labada qof markay guriga ay wada tagaan isguursadaan waxa qurux badan inay nolol qurux badan ku wada noolaanta sida dadka qaar oo kale markasta ninkaaga aad ku qaylido ama waxyaabaha xataa adad wuxuu ka baahan tahay kale amba khalad uu kugu sameeyo kale waad soo dhaweynaysaa